مظاهرات iyo banaanbaxyo taariikhiya ayaa ka socday maanta ilaa maayo 5 galabnimo ilaa 6 galabnimo guud ahaan dalka Faransiiska magaalooyinka oo dhan ayaa la isaga soo baxay guud ahaan dalka Faransiiska ay waxa ay ku dhawaaqayeen kelmado ay kaga soo horjeedaan wixii ka dhacay 4 cisho ka hor magaalada Paris dadku aad ugu fara badan yahay magaalada aan joogaa waa magaalada dhaho Angers oo ah galbeedka dalka Faransiiska waxaan la dhex qaaday kamarada aniga oo balduubaya dadka iyo aragtiyahooda iyo shucuurta guud ay aaminsan yihiin sidoo kale waxa iyaguna meesha socday caruuro dad waaweyn iyo sidoo kale dadyo jid ahaan aan dhamaystirnayn ama handicap kuwaas oo iyaguna jeclaa inay shucuurtooda soo bandhigaan waxa iyaduna ah kulay isweydiin karo waxa dhowr bilood ka hor jiray mudaharaad caalami ah oo dunida laga shaaciyay kaas oo lagu talagalay inay dadku shucuurtooda ku cabiraan dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday Palestine ee lagu xasuuqay ku dhawaad isku hal maalin 50 caruur iyo dad waaweyn isugu jira waxaan xasuustaa maalintaas inay jirtay in ay dad dhowr boqol oo qof gaaraya isugu soo baxeen dadkuna aanay ka wada sinayn halka maanta sidan oo dhan loo soo wada baxay ee wili sitaan joornaaladii ay dadka lagu laayay ka xanaaqeen iyaga oo ku aandacoonaya in aanay ahayn haba yaraatee hub lagu rido qof qalin wax ku sawiraya ee ay ahayd arin la fogeeyay dhanka kale dad waxa jiray iyaguna muslimiin ah oo iyagu laftarkoodu ah dadka dalka degan kuwaas oo la fikir ahaa dadka Faransiiska ah ama dadka kale ee reer galbeedka ah waxa kamid ah ninkan waxaan la joogaa waxaan weydiiyay magaciisa waxa booradiisa ku qoran inuu yahay nin carab ah oo muslina waxa uu soo qortay waxaan ahay Charles magacaygu waa Patrick Ahmed waxaan ka xumahay ka dhacay meesha ayuu leeyahay sidoo kale waxaan cambaareynayaa dadka magaca muslimka xumaynaya waxay ahaayeen laba iran oo yar yar iyo inankii kale markii dambe isla dagaalamay dadka waxaan sawiraa may ahayn dad xun waxay may ahayn sidoo kale in la rasaaseeyo ama bas soo weeraro aad baan uga xumahay waan cambaareynayaa buu leeyahay sida uu ninkani u dhigayo hadalka waxa jira dadyo fara badan oo iyaguna qaba in ay ahayn khalad in hub loola tago nin qof saxafi sheeganaya si kastoo uu caytamo ay ahayd in siyaasad kale la keeno keligii ma aha waxa iyaguna jira dadyo kale oo aanadooda ka qaaday inay ku cabiraan dhacdada tan isla goobta waxa iyaguna jiray dadyo Soomaali ah oo ku sugnaa bal iyagana aad wadina arki doontaan iyo aragtiyahooda ninkani waxa uu sheegay in aan haba yaraatee muslimku okay ku ahayn ama aan raalli ka ahayn wixii meesha ka dhacay waxa iyaduna jirtay in ay jiraan dadyo kale oo iyaguna Afrikaan muslimiin ah oo ka xumaa sida Soomaalida oo kale waxa iyaguna goobta ku sugnaa dadyo fara badan oo Soomaali ah kuwaas oo balaan weydiiyay fikirkooda ku aadan arrinkii maalin saddexaad ka dhacay magaalada Paris ee lagu laayay dadyowgii saxafiyiinta ahaa ee dhaleeceeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam balaan ku bilaabo waxa dhinacayga taagan inaan kan Soomaaliga oo isaguna balan jeclay ku soo dhawow walaal waxaad si toos ah u jirtaa barnaamijka hay'adda laga dhibanayay sheekadii ka dhacday maalintii Wiitole saxa wargeyska Shaaleado fikirkaaga ku aadan iyo dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim saaka horta waxa ka dhacay mudaharaad weyn oo ay dadka Faransiisku ku soo bandhigayeen sida ay wax yihiin dilkii loo geystay dad badan oo Faransiis ah lagu laayay magaalada Paris fikirkaygu markaas si u eego waa isku jir dhinaca waxaan kaga okay ku ahay inta gaaladu maadaama muslim badan dalilkooda ku laayay iyaguna ay yar dareemaan xanuunka dhinaca kale waan ka xumahay in dad farakutiris oo islaam oo laba ama saddex nin ay islaam badan culays iyo dhibaato aan haysan ay u keenaan ama islaamku ay ku noolaadaan iyagoo dalka Faransiiska islaam badan ku nool yahay haddana laga tiro badan yahay ku noolaadaan baqdin iyo in markay doonto wax ku dhici karaan taasina warwarkeeda leedahay laakiin marka la isku soo geeyo bulshada Faransiiska aan la noolahay aad bay uga midaysantay ka soo horjeedista falkii dhacay oo ay aaminsanaayeen inuu ahaa falar gagixiso sida iyagu sheegayeen waana isku waafaqsanaayeen yar iyo weynba ilaa dalal badan oo kamid ah dalalka reer galbeedka oo soo gurmaday maanta madaxda meesha joogtay inay ka midaysan yihiin dilka loo geystay dad Faransiis ah ku nool magaalada Paris
أدبو مهتي هي ياسين لأنك كلا واحد يسوون الشوقي إنما كلا أو بالسجن عن شعله هي إنه رأي جيس كليبته واحد كسر أنت هاي قابتها وكسر عضاء مظاهرات كني والمجا قاعد يقول كبلا بيا يرأي جا كام ستة هاي أرن كاي سجع مجا وشافي عمر علي وهرون واحد تاجنا مش مظاهرات كسره إلى ساعة هو سعد المظاهرات ضد فرانسيس كوردن وخد عيود من فرانسيس تجيبهان مجالان وخد المشتو مركا نيو أنا كل ده ما تعاون أيوب بوينتي لكن أنا لا ضد فرانسيس دور مرادي دور ودم بالله يقص قرع على سيداتي مركا حالتنا وحميدين جيستي يدكسيتين يعني دي سكول دي كورن dadku way cariisiin xafiisyada marka uu soo gashay wad dareemaysaa hadii qofkii wax dareemaya uu arkaya qofkan inuu ka xun yahay wixii Faransiisku dhacay ama muslim marka muslim tahayna si toos ah idin ku oran mayso muslim ba wax lagu sameeyay laakiin wad arkaysaa inuu qofkan cariisan yahay oo ka cariisan yahay dibkii ka dhacay Paris dadka muslimiinta oo dhan badankoodu dadka jaaliyadaha iyo waraaqay ku dhajiyeen sida carabta oo kale قوميدها فرنسيس كده كنا فرنسيس كمسلم كاي وي دلعيان واحد هذين يعني ويكجع عنك تنار كاس واحد هذين دي ودد خاصة مركا والله أنا جو هذا الكيس سو كوبية دتك فرنسيس كهاد بيجو كاسين أرك نوا وكأد كهذي ميل والبو الله يسقى صباحي وكا أدوم هاتية هي شافعي لكن كلا وحا يجونا ماشي كسرنا قار كم بدأ يوجع علماء الدين تاعه صومالي ده كله قوة كني ما دام أيهن كان هاي أرهن عبد سفر بدن ومفصي أو أد لوجو وريب الحالات ده يسامين تايكوي يلان كريس صومالي ده كله قوة كني فرانسيسكا بس واحد شعره يستوي في سكري بتوسي ده كرنا ونوجو حق الرما قد يوجع يدرين كده كسر دوّا أنا ديوك بلعب يا بالمجا عاجا يجا يسد حال قوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجا يوح هذا سعيد رهانتي يا رجال هذا جرات مامو وأرين كارثة ما مصيبة وكل عي وضن كان كنا الله فرانسيس ضد كنا وضن كان هو شعوب فرا بدنا يسكتشته ديما بدنا كلايستا درين كودو آد بوك عسنا ودي أرنتنا أما شقاقة دني دعدي ضد كوي كسور شيء دارنا كان مشورتي عن آد بالور دليله سببتها وحوي وأرين سامين يا إسلحقلك بالشدة مستقبل كودا يهودا ده إسلام كنا وحوي ودين نبتكلم ودين حريسات ودين طبعا عن حكمة أرنت الماشي كده عادي واحد أرن بلا حكمة وأرن روتي آد ضدك الشعوب هان أي درين كم يديسين ويكسر شيدان إسلامكم ما قال فوضى إسلامكم وحوي ودين maxay toolay u baahan in wax walba oo talaabo kasto la qaadayo loo eego maaragtay sida sharciga waafaqsan runtii marka xabsi badan baa jirta inkastoo dadku ay haddana ay maxay toolay laga yaabo inay maaragtay aanay ay taxadirayaan haddana waxa way qof waliba wuxuu ka baqanayaa maanta sidii hore xaaladdu ahaan mayso talo maxay noloshaada ku dambayn doontaa saameyn bulshada dhexgalkeedii marka runtii anigoo hadalka aan badinay waxaan u aragnaa arrinkaas arrin runtii si khalad u dhacay annaguna waxaanu cadaynaynaa inaanu arrinkaa bari ka nahay inaanan arrinkaa waafaqsanayn haddaanu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Faransiiska waxaanu mar walba ku celinaynaa inaanan arrinkaa bari ka nahay oo yahay arrin fool xun arrin aad iyo aad maaragtay رجي قلي أما الشخصي قشي أرنتي كنت دقيق مركا وحلا ياي لسداس إياه ماركتي ضد كنا يعني مودين إن حالته أي ساعة بورنت هاي حالته ويسكت دقيقة إن شاء الله ضد كنا ونكوعي قلنا يبغى ونوش يجني حقيقة إنه حوي ومضوا هنا يصير بدقليا وضعنا ولا تو وانكبر حي عادي بوم هاتي كاسبوحة وها سعيد عبد هذا وكم إذا علماء الدين تيوح كرتك وضع كان فرانسيسكا كل قن كم إذا صومالي كنا وضع كان فرانسيسكا سيدا أدوك كل ساعتين ساكا رابهارا لبعض الظهر نما ملها سيا وها وضع كان فرانسيسكا جودها كبلومي مظاهرات بلارن أو دمان وضع كلماتي كدعي كاسو لقصور كذي لونت هاجري يتديوغاس dhanka kale waxa jirtay in ay ugu yaraan ilaa iyo 60 dawladood kuntan dawladood meelahaas
hogaamiyayaashoodu yimaadeen Paris kuwaasoo ka tacsiyadeynayay dowladda Faransiiska sida idin muuqatay waxa iyaguna ra'yigooda cabiradoodii Soomaali ah oo qaarkood ay cabireen ra'yigooda isday warkaan qaarkoodna ay idinka warbixiyeen xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Jamaal Cabdi Ibrahim telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dalka Faransiiska